الحياة سكوليسي. بسم الله. وعشرتني أونلاين كهاي دوسك الحياة. ومادة في الصومال لقى فصل كشنات بيجك بقولي اللي هي صدن عتق أفراد 10 كيس السدحات. عوانك 10 كوح نقولنا أقون وهس هستن وحتريي أبوان أحمد أوجيدي محمود أو كم قعدة دارات أو كل شيء بربرة كون سجال بقولي هي اللي حدنكي وحبرشيد السدوسية ده وحاول كل مستي مجال ده هالجيسة ومنسيهن الحق دارات أولى رقم كيه ده منصدني وحيكون بلا مساصدة أرضي وحنو نهاي أقوانتي علمي lagu ababiyo asluubiyo dulqaad ee basiyeeyo ummadooda dhami oo asxaan falo ee ku adkaystayo lagu wada ogiyay oo bixii dalkow ubadkii dadkow indhihii dantow ma abaal gudnaa awrbaawrka hore inta uu socdo ka dambana ogiyo ku Itaaliya niman yahaw aflaxay aaranka kiciyo شيلك إيمان يبا ما تسمع أود لقوا آية وعن أرضي 10 كلمة أنت وحنا كسب سيها هستا أقون أبوان كوحو كذا هذا يا هستن أقونتها يو فايدوين كأول هذه آدميجا صوتها أقونت وحويان وحوقفك بنادم كقف كردجا وحنا ليدي أقون لا نوافتين لا صدق العربت واحد هذا الجهل العلم النور والجهل الظلام marka waxa uu nagu boorinayaa abwaanku inaynu cilmiga barano waliba aynu ku darno cilmiga akhlaaq fiican oo akhlaaqdii cilmigu ma kala maarmaan marka wuxuu leeyahay oo ardayda ku boorinaya ama ibdaadinka uu ku boorinayaa inay aqoon bartaan aqoontu ay noqoto waliba mid ay kala dhaxlaan aqoon fiican oo jiilba jiilka kale ka dhaxlo sababtoo ah facba ka dambeeya waxa uu ka dhaxlaa horumarkiisa sidoo kale waxa uu sheegayaa abwaanku heesta dhexdeeda ku cadeynaya ama meerisi kamid ah in ay maxaa ku raadayaan jiilashu ama aatihiin hada arday tihiin in ay tihiin dadkii dalka u maqnaa oo idinka idinku jiraan madaxweynayaashii wasiiradii macallimiintii dhakhaatiirtii injineeradii saas inaad niyada ku haysataan hadaba heestan ku celiyo erayadeeda maasadi arday waxaanu nahay aqoontiga cilmiga lagu ababiyo asluubiyo dulqaad ee basiyeeyo ummadooda dhami waa asxaan falo ku adkaystayo lagu wada ogiyay oo bixii dalkow ubadkii dadkow indhihii dantow ma abaal gudnaa awrbaawrka hore inta uu socdo ka dambana ogiyo ku Itaaliya niman yahaw aflaxay aaranka kiciyo shiilka imanayaba ma tusnaa awood dabo ay wacan halkaas inoogu joogaysa casharkeena maanta halkaas insha Allah ka sii aan baqaadi doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.